السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada Higgs Technology waxaan ahay Maxamed Xiggs maanta hadduu alla idmo waxaan qaadan doonaa kala saari doonaa oo idin sharixi doonaa sida loo sameeyo brochure adigoo isticmaalaysid Adobe Illustrator aan soo kiciyo markan Adobe Illustrator marka Adobe-ka soo kicisid waxaan ku ballanay oo hore idin sharax markasta aad sameynaysid inaad project sameysid waa inaad file dhahdaa kadib new dhahdaa kadib meesha ugu koreyso aad ku qortaa magaca waxa aad sameynaysid kadib custom kan u baahnid haddii brochure-kaaga uu yahay mid laba dhinac la ah oo labada dhinac wax ay hormayaan inta ayaa ka dhigaysaa labo haddii aad rabtid hal dhinac leh hal ayaa ka dhigaysaa badanaa brochure-rada labada dhinac ayaa wax looga qoraa isku sina waa loo design gareeyaa maahan in waxa ku qoran isku mid ay noqonayaan labada dhinac laakiin waxaan ka wadaa qaabka loo sameynayo waa isku mid sidaas darteed hal ayaan ka dhiganayaa aniga halka kan oo ah meesha ay ku qoran tahay A4 iyo A5 waa size-ka aad doonaysid ayaa halkaas ka gelinaysaa kadib inta waxaan ka dhiganayaa inch kadibna waxaan leeyahay inaad jiif ama horizontal ka dhigo kadibna okay halkan marka isoo baxdo sida wada ognahay brochure-ku badankoodu waxay ka kooban yihiin laba dhinac ilaa iyo saddex dhinac qaarkood sida ay u kala weyn yihiin warqadaha ayay ku xiran tahay laakiin A4 saddex dhinac ayay ka kooban tahay waxaan ka wadaa saddex qayb oo isku laamaysa ayaa laga dhigaa sidaas darteed waxaa sameynayaa sida saddexda qayb cabirkooda u kala qaato waxaa leeyahay rectangle kadibna inta ayaa imaanayaa meesha cad kadibna okay ayaa ku leeyahay kadib meeshas koowaad ayaa waxaan ka dhigayaa 3.9 halkan hoose wax badan oo qiimaa iyo ma lahan laakiin waa inaan iska cabirin karnaa kadib okay halkaas markay kusoo baxdo waxaa isoo baxay cabir muhiimadda cabirkan waxaa waaye jiifka ee maaha jooga sidaas darteed waxaa ka xirayaa calaamadda wareega ee madow ayaa ka baabi'inayaa oo laho stroke kadibna waxaa leeyahay none color halka kale oo fieldiga dhexda ahna waxaa ku sameynayaa color kale oo la dhaho ama madow ama blue colorka rabaa ku sameynaya kilig dheh kadib geeska geey haddaa rabto inaad geeskaas inuu ku saxan yahay ogaatid waxaad tegaysaa alignment kadibna calaamadda geeska leftiga ayaa kilig siinaysa alignmentka dus inta kugu soo bixin waxaad leedahay window kadibna alignment kadib inta markaa haysatid waxaa sameynaysaa kiligaa ku siinaysaa kan aaltaa qabanaysaa markay fallaarta laba xaba noqoto ayaa soo jiidaysaa waad simeysaa kadib waa sii daynaysaa kadib haddana control D ayaa leedahay si ay saddexda qayb u noqoto waxaad og tahay kalarkan aad ka bedelaysaa mid kamid ah midka dhexe hadda wuxuu noqday 1 iyo 2 iyo 3 waa saddexdii dhinac isku laamahay muhiimadda maaha rectangle-ladan ee muhiimadda waxay tahay inaad qabto cabirka sidaas darteed control R ayaa keyboardka leedahay haddii control R aad dhihin view-gan ayaa soo dooranaysaa kadibna waxaad dooranaysaa ayaa laga soo doortaa rulerka waa kana control R ayaa intaa laga soo doortaa rulerka ama control R ayaa keyboardka leedahay kadib intuu kusoo baxaya geeskan kor haddaa ka yimaad saan waaye laakiin kor maahan meesha u socono waxay tahay geeskan kadib sana usoo jiidaysaa geeska keen kana soo jiid sidoo kale dhexda keen marka la soo jiid meeshii laga dooranaysaa mar walba dhexda keen isaga ayaa cabirka isku istaajinaya badankood geeska geey intaas markaa sameysid oo ay kuu soo wada baxaan calaamadihii oo ay ku calaamadaysan tahay waxaa sameynaysaa kuwan ayaa iska dalinaysaa rectangle-ladan daliga okay maanta brochure-kaaga muxuu ugu saabsan yahay brochure-ka maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaa qaadanayaa waxa la dhaho school aan u bixiyay Higgs ayaa sameynaya okay rectangle-ka doono geeskaas ka soo bilaab hadba design-ka aday kugu xiran tahay design-ka adaa lagaa raba inaad dhigtid kadib waxaad tegaysaa ku dhufo kadib waxaad tagtaa meel ku qoran tahay draw inside
kadibna waxaa la hadlaa file kadibna place. kadib sawirada meesha soo dhigata ku xiran tahay iskuulka sawirkiisa waa kanaa adiga kugu xiran tahay meesha sawirada aad soo dhigatay inaad raadisida lagaa rabaa iskuulka sawirkiisa markaa sidaan usoo geliyo waxaa sameynayaa halkaas markay ii marayso calaamada shapeka ama rectangle-ka ku noqonayaa geeskan ayaa wuxuu yahay geeska koowaad ee warqada laga arkayo marka la isku laabo geeskana ugu horeeyo darteed waa inay loogada ka muuqataa waxaan sameynaya inta waxaa ku sameynayaa calaamadaas shapekan shape colorka waxaa ka dhigayaa color cagaar xigeen amal ah oo blue soo xiga okay halkaa markaa maraysid waxaa sameynayaa texta soo dooranaya kadib intaa imaanaya waxaa ku qoraa iskuulka magaciisa Higsi Institute of Technology then waxaa sameynaya waa weyneynaya boolde kala yareynaya qaybtan hoose waan yareynaa tagayaa xoogaa waxaa badinayaa kala fogaanshaheeda badinayaa kadib inta isku keenayaa kalarka bedelaya white ka dhigaa sasa waxaa ku qoraa halka fadhiyarey halka teknolojiyad weli white ka dhigasna shayka tag waxaad doorataa foundka rectangle round lahaa kadibna waxaa ka dhigtaa stroke bis dooro isku aadi bis markaa sameeyo waxaa sameynayaa rectangle dooranaya inta imaanaa kalarka waxaa ka dhigaya bluegan oo kale kadib waxaa ku qorayaa nagu soo booqo xarunteena okay kadib qaybna folder ka dhiga qaybna saari waxaa sameynaa qaybtana folder ka dhigaya qaybta hore folder ka dhigaya qaybta horena qaybta madax ka dhigaya saari kadib waa yaro weyneynaya white ka dhigaya nagu soo booqo xarunteena kadib waxaa qoraya waxaan leenahay wuxuu ku yaalaa Makka al-Mukarrama yara fartaa waxaa iga noqotay nooc kale markaa iska bedelayaa ayaa ka dhiganaya farta Makka al-Mukarrama Makka al-Mukarrama Mogadishu Soomaaliya
hoos u dhigaa wiilasha marka aan kor bold ka dhig waa iska shuuteynaysaa adiga muhiim maahan wixii saxda inaad keentid fartan greenkan cagaar xigeenka ka dhig kan hoos soo dhig waa soo koobiyey okay iskuulkan facebook ma leeyahay kaba soo qaad facebook ma leeyahay facebookiisa waxaa la lahaa qaybtan kooda facebookiisa waxaa la lahaa facebook.com/higstag facebook.com/higstag okay markaa sameysa haddana soo koobiyey haddana waxaa sameyn karaa fartan wada waxaa ka dhigayaa bold si ay isku lahaato facebook.com/higsi waxaa kasoo qaadaya higsi institute of technology intasaa kasoo qaadaya instagram aa sameynaya kan waa ku dhufanaysaa ayaa taabanaya yacni fartan horaa idin kugu sharaxay fartan waxaa waaye tapekan oo lahaa wax walba oo wax ku jiro oo ah shayb ah icona ah hadaa rabtid instagram isna sidaan weeyaan wuxuu kaloo leeyahay kaba soo qaad markaas kuubiyeysa aalka adoo heysidaa soo jiidaysaa bis wuxuu kaloo leeyahay wixii meelihii link.com/ bis markaa soo sameysid korkaana u noqonayaa waxaa saarayaa shape inta shapekaas waxaa ka dhigayaa white intan waa koobiyeyna intaa keenayaa waxaa ka dhigayaa kalarkan kadib waxaa doonanayaa loogada waxaa soo gelinayaa loogada iskuulka opina leedahay meesha ay ku taala raadsanaysaa loogadaada mid waxaa meesha ay loogada ku taalo kadib waa soo gashanaysaa kadibna hawshaada cadaysaa markaasaa usoo gasho waxaa leedahay image track kadibna extend kadib waxaa leedahay click kadib waxaa leedahay group kadib soo group leh soo qaad keen kadib waa yareynayaa saaraya kadib waxaa dooranayaa white sidoo kale hoostana usoo qaadayaa hoostaas edit shape oo h2 dooro halkan dhig kalarka bedel haddana waxaan sameynayaa stroke oo white ah oo weyneyn kadib intaa keenayaa send to the frontal okay inta markaa sameeyo kan waa iska yareyn karaa halkana kusoo hartay qayb saddexaad ayar kana ku noqonayaa farahan oo hore bold waa ka qaadaya tan kala ka dhigaya regular bold ka qaad regular bold ka qaad regular yani somehow quruxa ka raadinaya maaha wax shuruudo waa gartay haddana inta shape soo dooro tan kale soo qaad kadib waxaad doorataa throw inside kadib file deh kadibna replace deh kadibna waxaa soo doorataa meesha sawir ku yaalo sawiraa soo gelinayaa kadib yariiskanaa soo gelinayaa waqtigiisa wataa arday waaye kan isu weyneyn waxay sii yareen
sidaan sameeyo waxaa dooranaya rectangle ayada dhan waa iska rectangle waxyaaba kala badan way jiraan oo sameeyo laakiin hadda waxaa simbalka kasoo qaatay kadib waxaa la rabaa iskuulkan visionkiisa iyo missionkiisa iyo waxaas inaa sameeyo waxaa rabaa inaa marka hore inay ku diyaarsanaadaan qoraalka iskuulkaas oo word ah hadda anigu is diyaarsan yihiin isagoo kan ah midka kuwaad about-ka soo qaadanaa ama ku saabsan koodkiisoo leh soo kace shape soo qaadanaya soo dhigaya waa shape rectangle like road ah kadib wayda ka dhigaya kadib qoraalaa dooranaya waxaa ku qoraya about kadib bold aa ka dhigaya hortana waa yareynaya halkaas markaa maraysid weli waxaa sameynaysaa shape-ka yar waxay soo dheeree fartan balaagka bedel waxaa ka dhigtaa greenkan taga soo qaado about-aas soo baasta kale aa wadatay about-aas weyn aa wadatay waa yareynaya farta boldi waa ka dhaafaya rectangle ka dhigaya kadib intaa keenaya qoraalka duufayna ka qaadanaya inta kalena waa iska daleedaya kadib shape ugu horeysa capital geli kadib farta wide aa ka dhigaya about-kaas ma igu saabsan tahay kana haddana soo koobiyeynaya shape iyo qoraalkiisa inta keen vision kale mase vision kale kadib waxaa tagtaa meesha uu ku yeesho kadib missionka soo qaado missionkiisa soo qaado waxaa qoraalka missionki waxaad iskuulka isaa wato oo deegaanka loo sameynayo kadib baasta gel kadib waxaa sameysaa qoraalka soo habeeso soo yareyso enter kadib waxaa sameysaa farta qabanka bedel marka koowaad ereyga ugu horeeya capital kali waxyaaba qaar oo is leedahay waa loo baahan aragtidkooda inay ku dhacdo bold kali waa gartay inta markaa sameysid waa yara xoogaa dhammaystiran tahay saddexda qaybtan kuwaad ayada ugu horumarayso qaybtana laba qaybtan kan laftirkiisa waxaa ka dhigtaa farta inay dhexda ka bilaabanayso keli ay dhexda tahay okay intaas markaa sameysid inta waxaa ku sameyn kartaa waa yara sii qurxinaa calaamadaas ku sameynaya kadib mid kale kusii korsameynaya kadib labadaba shift adoo haysaa labada kaligeed leedahay kadib waxaan leeyahay minimize font okay kan laftirkiisa shapekan waa bedelayaa shape minimize-ka oo kale oo sameynaya inta centerka ku aadinaya kadib waxaa soo qaadanaya shape kale si ugu jiro kadib labadooda highlight-aa wada saareysaa kadib minimize-ka soo kusameysaa kana sidoo kale waxaa ku sameyn waa daleedaya koraa dhiganaya loogadan group soo leeyahay soo dhiganaya soo jiidaya kalarka bluegiisa hore usoo celinaya kadib soo qaadaya inta usoo dhigaya kadib control shift bracket furan ama bracket xiran nidhaahdo markaa sameey control zilde waa kaya minimize had saddexdooda saas isku laamayaan dhinaca kale haddaa ururtiina waxaa ku sameysaa si kale u design garaynaysaa waa u laabaysaa garanaysaa marka halkaasaa kusoo dhamaystirnay shape haddaa rabto qurux iyo noocyo shape noocyo kale waxaasna waa sameyn doonaa insha allah laakiin hadda midaan ugu horeyso aan sameynay waxaa waaye midda ugu sambalsan oo hadda aan sameynay mid ugu yaraa fudud oo shape iyo rectangle la isticmaalay badankeed ayagoo dhib badan oo qurux badan laakiin
ذلك سمين دونا إن شاء الله. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي عشان كان حكى شيء سبسكرايب كان المامين بعد سلامنا سودوا دمان أصحابتنا كلنا هاي يوتيوب كي فيسبوك لبضبا وحنا اللي هاي سؤالهنا كومنتي نورين إن شاء الله.